السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي wanaagsan asxaabay meel kasto naga daawanaysaan ku soo dhawaada barnaamijkeennii labaad maanta waa Arbaco taariikhduna waa 24 bisha Juun sanadka 2026. haddaba barnaamijka waxaynu ku soo qaadanaynaa wararkii ugu waaweynaa ee soo kordhay intaynu kala maqnayn. qodobada barnaamijka aan idinku hayo waxaa ka mid ah wasiirka gaashaandhigga Israa'iil oo goordhow hadlay ayaa si rasmi ah u sheegay inaysan Israa'iil ka bixi doonin koonfurta Lubnaan xitaa haddii Trump uu yiraahdo ka bax. Israa'iil warkeedu waa cad yahay. maxay kaga jawaabeen Xisbullah iyo Iiraan? iyana barnaamijka ayaan ku faahfaahin doonaa. waxaa kale barnaamijkan idinku haynaa wasiirka arrimaha dibadda ee Qatar ahna ra'iisul wasaaraha dalkaas ayaa safar degdeg ah ku tagay caasimadda dalka Cumaan ee Masqad isagoo halkaa kula kulmay suldaanka dalkaasi xukuma Suldaan Haytham maalin ka hor markii wafdiga Iiraaniyiinta ay suldaanka la kulmeen. haddaba Qatar maxay mar kale karkarinaysaa oo ay ka shaqaynaysaa xogo muhiim ah oo ku saabsan arrimahaas iyana barnaamijka ayaan idinkula wadaagi doonaa. waxaa kale aan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa warar kale oo ku saabsan xaaladaha gobolka iyo wixii warar ee soo kordhay intaynu barnaamijka ku jirno. kulanti wanaagsan asxaabay meel kastood naga daawanaysaan ku soo dhawaada barnaamijkeennii labaad maanta oo ah maalinimo Arbaca taariikhduna waxay ku beegan tahay 24 bisha 6 2026. wararkii soo kordhay ayaynu barnaamijka ku faahfaahinaynaa. ugu horeyn barnaamijka waxaynu ku bilaabaynaa wasiirka gaashaandhigga ee Israa'iil ninka la yiraahdo Israel Katz ayaa faahfaahin ka bixiyay ujeedada iyo waxa ay ka doonayaan Israa'iil mustaqbalka koonfurta Lubnaan. ninkan oo ka hadlayay shir ay dad isugu yimaadeen magaalada Tel Aviv oo socday shalay ilaa maantay ayaa wuxuu ka jeediyay khudbad uu leeyahay annagu haddaan nahay Israa'iil maba ka baxay laba Lubnaan. xataa haddii Trump uu yiraahdo hadda ka baxa ma ka baxayno. waan ognahay kulaha inaynu is wajihi doono annaga iyo Trump laakiin ma ka yeelayno. muxuu ula jeedaa marka? fariintaasu maxay tahay? fariintaasu waxay tahay annagu waxa aan wadi Trump oo ma rabno kuma qanacsanin. nimankan meesha hadday sii joogaan macnaheedu maxay tahay? dagaal ma hurtaa la yiraahdaa. Xisbullah sidee xabad joojin ay ku aamusayaan nin gurigiisa lagu jiro suuragal ma. marka arinkaasu marka waxaa leeyahay wasiirka uu ku hadlayo waa arin dhaawici kara heshiiska Mareykanka iyo Iiraan. si toosa Iiraan maartay Israa'iil ay ula dagaalamaysaa heshiiskaas. haddaba marka aan idin tuso wararkii ugu waaweynaa ee soo kordhay xaaladda Katz oo ah wasiirka gaashaandhigga ayaa wuxuu yiri ma ka baxayno koonfurta Lubnaan oo macnaheedu yahay ma ka bixi doono koonfurta Lubnaan xataa haddii Washington ayna weydiisato arrinkaas. haddaba warbixintu way sii socotay. waxaa leeyahay wasiirka gaashaandhigga Israa'iil ninka la yiraahdo Israel Katz ayaa Arbacada maanta sheegay in Mareykanka iyo Iiraan inkastoo isfaham ay gaareen haddana Tel Aviv inaysan marnaba ka bixi doonin koonfurta Lubnaan xataa haddii Trump uu arrinkaasi codsi la yimaado ma ogolaanayno leeyahay. haddaba wuxuu ka qayb galayay shir muhiim ah oo ka dhacay magaalada Tel Aviv kaasoo soconayay shalay ilaa maanta. wasiirku waxa uu sheegay in Israa'iil ay ka go'an tahay ayna og tahay waxa iyadoo ay sameynayso. kanaalka 12 ee Israa'iil iyo jirada la yiraahdo Yadcood Axranood iyo wargeyska la yiraahdo Israa'iil Huyum ayaa dhammaantood ka hadlay hadalkan muhiimadda uu leeyahay iyo sida uu uga hor imanayo qorshaha Donald Trump. Trump marka muxuu sameyn karaa? Israa'iil waxa leedahay meeshan ma ka baxayno wax kasta hadaa sameeyay. Trumpna wuxuu soo saxeexay heshiis ah inuu Israa'iil ka saarayo koonfurta Lubnaan dagaalkana la joojinayo meeshaasi Lubnaan ay nabadi ka dhacayso. marka sheekadu markuu sheeko waa qasabtahay niman haraya ma horaadi ku sheegay nimankan koofiyad yarta niman sahlan ma. dhanka kale Mareykanka iyaguna waxay bilaabeen diyaaradahoodii waaweynaa inay ka qaataan Israa'iil.
diyaaradihii waaweynka ee booyadaha ah shidaalka qaadayay ee airportka Bangorion iyo meelaha yaalay oo Iran dagaalkeedii loo keenay waa qaadanaynaa dheen khalaas dagaal waa dhamaaday dheen Israa'iil hadda kadib hadaa dagaal gashaan adika kaligiina leewaay annaga waxayna waa qaadanoo ilay Mareykan hadaba markaan idintuso wararkii ugu dambeeyay arikaa laga qoray haddaba warbaahinta cibriga ayaa goordhow qortay warbixin ay leedahay Washington waxay bilaabeen inay yareeyaan oo ay qaataan diyaaradahoodii shidaalka qaybinayay iyagoo ka qaadanaya airportka Bangorion haddaba hore ayay Israa'iil waxay u sheegtay diyaaradahaasu inay garoonka culaysyo fadar badan ku hayaan laakiin Mareykanku xilliga waxay sheegeen inay markaa doonayaan in marka dagaalka uu dhamaado Iran ay markaa toos diyaaradahooda ugala baxayaan Israa'iil oo ay qaadanayaan waxaanu qaadanayna taasoo ka dhigan inuusan dagaal dambe u soo socon ninkii Mareykanka waa taa xalay ogeydeen barnaamijkii saakay aan ku soo qaatay in Mareykanka baarlamaankii uu yiri annagoo ku amrin hadda kadib Iran ma weerari kartid marka arinta ku saabsan weerar dambe in lagu qaado Iran wayba iska sii yaraanaysaa marka rajo badan halkaan lagu jiro laakiin niman Israa'iiliyiin waxa jira oo aan harayn oo leh meeshan ma ka baxayno Lebanon kama baxayno Suuriya kama baxayno maada askari bakaada ka baxay seen nabad lagu helaa nabad ma iimaanayso weligeed wax nabad leeyahay meeshan ma ka soo socoto inta hawshaas aan wax laga qaban marka hawsha halkaas ay maraysa haddaba sheeko kale oo wararka cusub kamid ah soo korortay jirta wasiirka arrimaha dibadda ahna ra'iisul wasaaraha waddankaasi Qatar ayaa wuxuu socdaal aan hore loo sii sheegin ku tagay caasimadda Cumaan ee Masqat maalin ka hor ayaa waxaa Masqat tagay wafdi Iiraaniyiina Qaalibaaf iyo Ciraaqji iyo ayaa waxay la kulmeen ninka xukuma Cumaan ee la yiraahdo Suldaan Haytham ninkan waa ka degay meesha nimankii markay baxeen warar kala duwan marka isbarbar socda qaar waxay leeyihiin dan Qatar ayuu u tagay meesha oo ah maadaama gaas fara badan Qatar ay gudbinayso Hormuz in marka Iran iyo Cumaan maadaama isbahaysi ay Hormuz waxaan leeyihiin in iyaga culayska laga qafiifiyo oo maraakiibtooda maadaama nabadna ay ka soo shaqaysay hawl noocaas oo Qatar danteeda dada qoray qaar kale oo warbaahintu waxay leeyihiin wuxuu u baxay masaalix oo khaliiji ah macnaha wadamada kale ee khaliijka in maartay iyo Iran la isu keeno oo Cumaan ay ka odayeyso oo wadamadan khaliijka ee isticmaala Hormuz iyaguna dhibaatada Iran ay ka deyso oo mushkiladaha iyo waxa kan laga qabto arikaasna waa la leeyahay marka dhowrka arimooda jir marka nimanka qadariinta ah marka shaqadaas ayuu marka ninka horay iyada safarka hore loo sii sheegin ayuu halka tagaala leeyahay hadaba markaan idin soo wararkii ugu dambeeyay booqasho ayuu ra'iisul wasaaraha Qatar ku tagay Masqat hadafkiisana waxa la sheegay inay kamid tahay diyaarinta wada hadallo khaliijka oo dawladaha ah iyo Iran dhexmara arinta ku saabsan marinbiyoodka Hormuz وجدا marka wada hadallo khaliiji iyo Iran ayuu markan Qatar ka shaqeynaysaa inuu bal wadamadii khaliijka oo iyaguna meeshan ishoodii ay wax u marayeen ay tahay Iran oo meeshan hadda soo degto qabsatay iyo Cumaan oo Iran la socota oo khaliijkina ka tirsan in marka xoogaa maslaxa meesha iyadana laga sameeyo waaya qodobka kale ee barnaamijka aynu ku soo qaadanaynaa wuxuu yahay arin kale oo muhiim ah kooxda kubadda cagta ee Iran culays fara badan oo Trump ku hay Mareykanka ka ciyaarayaan oo koobka adduunka ka qayb galayaan markay Mareykanka ciyaar ku leeyihiin isla maalinkaas ay ka soo duulayaan Mexico waxay maanayaan Mareykanka waa ciyaarayaan inay ku hoydaan lama rabo hadana waa inay noqdaan markii nimanka culays fara badan haystay labada ciyaaro hore marka way ku wareereen inkastoo waddankeygana iska iga bax ku ciyaar bax meel u raacda male nimankii FIFA waxba waa ka qaban waayeen oo xiriirka kubadda cagta adduunka haddaba markii Iran marka ay Mareykanku hadda isfahameen ninkii Trump ah waxba uu ka bedelaa leeyay nimankii hawshoodii muxuu yiri
maalinka ciyaar leedihiin oo Mareykanka ku ciyaaraysaan waxa leediin ogol yahay 2 maalmood ka hor inaad timaadaan ku nasataan tababar ku samaysaan kadib ciyaartaan kadib markaas aad noqotaan hadda ciyaar ay leeyihiin oo ay la ciyaari doonaan ugu soo xigta Masar ciyaartaas marka waxa loo ogolaaday 2 maalmood ka hor inay soo gali karaan Mareykanka arintan marka waxay ka dhigantaa leexogaa isfahamka Mareykanka iyo Iran marka ninka Trump wax walba meel walba waa ciyaarihii waa ku daray dagaalka meel walba waa gali hadaba markaan idin soo wararkii ugu waaweynaa ee soo kordhay hadaba ka hor ciyaarta Masar dhexmari doonta telefishinka CNN sida uu leeyahay xukuumadda Mareykanka ayaa waxay sheegtay in wax laga bedelay oo arrimo cusub loo sameeyay xulka kubadda cagta ee Iran hadaba marka waxa leeyahay xulka Iran ayaa loo ogolaaday 2 maalmood ka hor ciyaarta uu la yeelanayo Masar inay Mareykanka soo gali karaan marka kadibna ay ku ciyaari karaan marka arintan iyaduna waxa ka mid ah leeyahay waxoogaa isku soo dhawaanshiyaha Iran iyo Mareykanka ayay ka mid tahay hadaba qadar xaysiisa kadib waxaan galaynaa bal wixii akhbaarada ee cusub ee soo kordhay kulanti wanaagsan asxaabay meel kasta oo naga daawanaysaan ku soo dhawaada barnaamijkeena labaad maanta oo ah maalinimo Arbaca qaybihii ugu dambeeyay barnaamijka waxaanu ku soo qaadanaa alaaba wixii akhbaar ee soo kordhay intaanu barnaamijku jirin hadaba barnaamijku waxaynu ku soo qaadanaynaa war goordhow soo dhacay Al Jazeera waxa leedahay 2 qof ayaa dhimatay weerar ay Israa'iil ku qaaday koonfurta Lebanon ma harayaan nimankan duqeynay ku sameeyeen waliba waxay ku duqeeyeen diyaarad daroon ah sida la leeyahay hadaba hay-adaha gurmadka Lebanon ayaa sheegay 2 qof inay dhinteen kadib markii weerar dhinaca darooniska Israa'iil ay ku qaaday koonfurta Lebanon inay ku qaaday deegaanka la yiraahdo Kafarman oo marka halka ku yaala hadaba Israa'iil marka waxa leedahay koox Hezbollah ayaa ka shakinay istifaac ka mid tahay marka nimankan meesha kama baxayaan waxay rabaan way duqeynayaan yaa ka akhrisanaa marka aqligaas marka xaguu ka imaana heshiiska marka Mareykanka iyo Iran nimankan aysan waxba duqeyna sameeyeen marka hadda daday dileen diyaarad daroon wax ku duqeeyeen hadii marka daroon iyaguna ay ku jawaabaan Hezbollah yaa jabiyay xabad joojinta leey marka muran farbadana meesha ka taageen marka nimankan iyo Trump meelay kala gaartaan arki doonaa Israa'iil iyo Trump xaalkoodu ma fiicna heshiiskii Israa'iil si allaale sidii ay marka kula faguri karto oo ay marka kaga hortagi karto way ka shaqeynaysaa leey barnaamijkayga labaad waa naga inta asxaabay la garay oo shirgaray barnaamijka intaan marka la kulmayno nabadgelyo